haddaan soo orday qolka asoo saas u dhex yaala uu imid aniga naf muu ku jirin waa arkay war wiilka waa dhintay war najiib waa dhintay qoorta qalab gacanta qalab cabdimajid cabdirasaaq cabdiraxmaan seef oo ahaa wiil dhalinyaro ah ayaa waxa ay koronto ku dishay xaafadan oo ku taala agagaarka xarunta degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho cabdimajid oo 20 sano jir ahaa isla markaana la sheegay in sanadkan uu markaasi doonayay in jaamacadda uu dhameeyo isla markaana uu ku jiray difaacashada buugga iyo diyaarinta buugga jaamacadda si uu sanadkan kaga qalin jabiyo diyaarintiisa ku jiray sidoo kalena ahaa wiil dhalinyaro ah oo imaam masjidka ka ah xaafadda ku yaala waliba muadin imaam iyo sidoo kale jamaacada aadka ugu xiran masjidka xaafadda ku yaala ka mid ahaa ayaa xilli uu maanta ku sugnaa guriga qolkan uu deganaa waxa ku dhex dishay korontada mid ka mid ah shirkadaha korontada ee magaalada muqdisho waxaana la sheegay in xilligaasi uu halkan ama sariirtiisa aageeda uu ku sugnaa isla markaana ay fiilo koronto ah qabatay sidaasina uu ku geeriyooday eedadii soo korsatay ayaa waxay nooga warantay halkan iyo falka maanta ka dhacay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun ma dhinta waa ilaahay qadar aa dhacday oo ilaahay loogu xamdiyo waayo waxaa ilaahay keenin ma dhacayaan najiib allihii shalay lahaa maanta oobsaday aniga eedadiisa ah najiib waan korsaday iskool dugsi sanaan ka baxsaday jaamacaduu dhiganaya sanadkan buuggii u qoray 2 bilood bisaa ka dhinneed bishaan iyo bisha kale uga dhinneed alxamdulilah qadaraa ku imaada najiib anoo gurigaa kasoo horjeedaan degan asna kanaan u kireey qolkaana u kireey bishii $40 oo iyo $10 waxaan ka dhiibay oo koronto iyo biyo ah marka najiib alxamdulilah $50 bishaas ugu bixisay waxbarashadiisii jaamacadiisa bannaankay ka ahayd alxamdulilah hooyo male aabba male aabiis maba arkinba asoo 6 bilood jiruu dhintay hooyadiisana waa dhimatay najiib adeer iyo ehel anaa u ahaa ma garata ilaahayaan iga jeclaaday maanta kuwaan dhalay wuu iga xanuun badan yahay alxamdulilah ilaahayaan ugu xamdinaa waayo alla wuxuu keenay mar walba waa lagu xamdiyaa waana lagu shukriyaa maanta anoo gurigaas joogaa gabadh gurigaan degan isoo shukri gabar la dhahay orday halma arday koronto waa salalay waa tukanaya casar waxay ii sheegaysa waa kasi waa korontaana qabatay meeleeda koronto waa soo cararay korontada maxay tahay najiib korontaa qabatay haddaan soo orday qolka asoo saas u dhex yaala uu imid aniga naf muu ku jirin waa arkay war wiilka waa dhintay war najiib waa dhintay qoorta qalab gacanta qalab waxay leeyihin waa noole isbitaal war isbitaal ha geynina war wiilka waa meed wiilka banaankaana la keenay biyaa lagu shubay war waa meed wiilka biyaha ka daaya war waa meed alxaasil aljaziiraan geynay mar horu ninkaan nafta saacado ka horuu dhintayna dheheen si islaamnimada ama ku jirta noolamay hadleen wiilkiina waxaa dilay dheheen mar waxa taleefanaa u dir war noo imaada saldhigga aan tagno wax aan kala qorano kadamba wiilaa ila hadlay wuxuu ahaa ma garanaa eed wax maqashaa wiilkaaga mar waxadaa anaga ma dilin mana qabataa marka dad islaanaan nahay dhanka kale qaar ka mid ah eheladiisa ayaa waxa ay nooga warrameen dhibaatada wiilkooda soo gaartay isla markaana u geeriyooday korontada ku dhegtay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun walaalkeen najiib ilaahay u naxariisto marti la jecel yahay Allah ka dhigo wuxuu waa nin dhalinyaro ah markaas aad u firfircoon xagga diinta markaysa jaamacadna waa dhiganayay waliba jaamacadda markaysa kulliyadda sharciga ayuu baranayay nin wuxuu ahaa markaysa maalinka isniinta iyo maalinka khamiista soomo ahaa masaajidna waa ku xiranaa qaasatan masaajidka hadda la sheegay ee aqwaanka ee xaafadiisa ku dhow marna wuxuu ka ahaa muadin marna naa'ib u ahaa oo salaada ayuu dujinayay galabta markay ku qadarta ilaahay ku dhacaysayna wuxuu ahaa saa'im u ahaa isagoo sooman oo isa qab ah ayaa markaysa korontada ku dhigtay jannadiisa fardoosa markaysa Allah ka waraabiyo ehelkii iyo dadkii ka tagayna samir iimaan Allah ka siiyo marka ninkaas nin markaysa ahlu khayran ku tilmaami karna maalin khamiis ah salaad casr oo markaas qariiba weysadeeda ayuu ku dhintay gadaashiisa masaajidka aqwaanka meesha ay ku magacaabaan adi waqtiga ay tahay maartay 9 saac taariikhduna ay tahay 24 bishii 3 2022 marka qoladaas madaxdii iyo dadkii hormuudka ka shirkadii dhowr jeer ayaan wacnay wax garaabshaana kama aanan helin ilaa haddana war saafi ah oo la yaqaan nama ayna siinin marka dhibaatadaas ayaana nagu dhacday marka sidaas ayaan maartay ugu tacsiyeynaa dadkii ehelada ahaa
meel kasta ay joogaan wiilkay ilaaha uu naxariiso subxaanahu wa tacaala marka culayskaas ayaana soo wajahay sanadkan 20 sano waa Najiib waa nin yar u ahaa waxna dhalin alxamdulilah ilaahay yaa sajaclaaday qadarta ma diideen wixii ilaahay keenana lama diidaa qof walba nafuu leeyahay saacaduna leeyahay guryaha jiingadahaana waa inaad ka taxadirtaa waa inaad korontadaada ay ku jirto guryahaas laga taxadiraa waa inuu guriga isdamin karaa markay koronto qabato magaalada muqdisho mararka qaar waxaa ka dhaca falalka caynkani oo kale ah oo mararka qaar koronto disho dad ama koronto markaasi biyo taabatay ay dadka disho cabdikariim cali aadan warbaahinta goobjoog muqdisho